هذا mideeda gaadmada badan aan gaabin socodka kuna kadisa ugaarta ayaa loogu magac daray cutubiyada la soo carbiyay ee Kumaandooska xooga dalka Soomaaliyeed ee GorGor oo guyaal kooban gudahood ku soo jiitay indhaha Soomaalida iyo caalamkaba ciidamadan oo qayb ka ah tusaalooyinka muuqda ee muujinaya isbadalka wadanku uu sameeyay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay ayaa lagu qoraa shuruudo adag waxaana sanad walba ku biira boqolaal dhalinyaro ah da'yar aqoon leh misana ka caamay muddadii burburka oo uu dhaqaajinaya dareen wadaniyadeed si ay u soo oodaan albaabada tabaryarida iyo quursiga una soo afmeeraan kooxaha ku shaqeeya fikrada shisheeye ee caqabada ku ah amniga dalka safafka ciidamadan Soomaaliyeed ee Turkidu tababarto oo hayaankoodu uu ka bilowdo dugsiga Turkisom oo ah marxaladda koowaad ee carbiska ay ku qaataan ayaa qaybtood qalin jabinta kadib loo gudbiyaa wadanka Turkiga halkaasi oo ay ku soo qaataan koorsooyin sare oo kala duwan GorGor oo qaab ahaan aad loo carbiyay ayaa muddada tababarka loo dhisaa jir ahaan iyagoo ka bogta xirfadaha ciidanka iyo tabaha dagaalka toogashada meelaha fog ku dagaalanka hubka culus fulinta weerarada gaadmada ah beegsiga shakhsiyaadka argagixisada ah ee dhaqsida looga howlgalayo macluumaadka degdegta leh ee laga helo la qabsiga nolosha adag xilliyada furimaha dagaalka ka hortagidda iyo soo saaridda miinooyinka cadowga xiro iyo ku lugaynta dhulka cimiladoodu adag yahay saacado badan waqtigan oo Soomaalidu ku dhaadata dhaqsi dhismeedka ciidanka iyo isbadalka samaysmaya xilli wali ay dalka saaran tahay cunaqabataynta caalamiga ah ee dhinaca hubka ayaa la qiyaasayaa in uu dhabaha u xaarayo kororka tirada ciidamada tayadooda iyo inay ku filnaadaan la wareegidda amniga dalka marka laga tusaale qaato howlgallada ay fuliyeen oo ah kuwa dhammaantood ay ka soo hooyeen guulo wax ku ool ah ciidamada GorGor ee Kumaandooska ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed oo kamid ah xoogaga wadanka ee tir ahaan kordhaya ayaa intooda howlgallada ku jirta ee tababarka dhameystay la siiyay hub culus iyo mid fudud oo casri ah iyo gaadiid gaashaaman oo qaarkood aysan rasaastu karin iyadoo ururo kamid ah guutooyinka GorGor loo qaaday gobolada dalka iyo xuduudaha wadanka isla markaana xoojin u noqday ciidamada qalabka sida ee ku howlan ilaalinta amniga wadanka xoogaga Kumaandooska Soomaaliya ee GorGor oo nidaam ahaan qayb ka ah unugyada ciidan ee ku dhismay heshiiska iskaashi wadaagga ah ee Soomaaliya iyo Turkiga ayaa la filayaa inay sii kororto tiradooda oo la qiyaasayo in dhowrka sano ee soo socota ay gaari doonto in ka badan 10,000 oo askari si awood ahaan sare loogu qaado militariga Soomaaliya oo si geesinimo leh durbadiiba ugu filnaaday qaadista weeraro aysan ku wehelin awoodaha kale ee Soomaaliya ka taageera la dagaalanka argagixisada Somalia oo dawlad ahaan amnigu ugu jira liiska qorshayaasha ugu horeeya ayay dhalinyarada waxbarata ee ka baxda dugsiyada sare iyo jaamacaduhu noqdeen kuwa iska diiwaan geliya fursadaha ciidamada oo si daahfuran loo soo bandhigo iyagoo intooda ugu badan ku biira GorGor iyo haram cad oo safka hore ugu jira ciidamada Soomaalida ee sanadahan isha lagu hayo